Hadda ka hor 2018 anigoo wada mooto bajaaj ayaa waxaan soo qaaday nin aan da'diisa ku qiyaasay 70 sano jir, waxaana ka soo qaaday isgoyska korontada Madiino, wuxuuna u socday degmada Kaaraan. Waxaan ku heshiinay $4 inuu bixiyo. Annagoo dhex sii marayna waxaa soo wacday gabadhiisa, waana habeen, waana 9:15 habeennimo ama 3:15. waxayna ku tiri, aabba waxaan u baahanahay $4. wuxuu ku yidhi $4 keliya ayaaba iigu jirta aabe, ee wax daran miyaa jiro? Wada hadal kadib wuxuu ku dhahay isug, waan kugu soo celinayaaye. Dhankayga ayuu u soo jeestay isagoo wejigiisa ay murugo ka muuqato. Wuxuu yidhi, aabba gabar ayaa wakhtigan cidla iga taagan, ee i furo oo i daymi, ina aamin. Waxaan ku dhahay haye adeer. Annagoo dhex sii marayna ayaan bilownay inaan kaftanno, waxaana ku dhahay waan ku dayminayaa lacagta, waxaana laga yaabaa inaan gabadha kaa soo doonto adeer. Wuxuu iigu jawaabay, minaa iga soo doonata gabadha waan ku siihaa adeer, shuruud la'aan weliba. Waxaan ku dhahay, haddayba sidaa tahay kaama raba $4 adeer, waana kaftamayay. Muddo kadib wiil walaalkay ayay isfahmeen gabar ay muddo wada socdeen. Markii la gaaray wakhtigii la qabanqaabin lahaa guurkooda, ayaan tagnay gurigii gabadha. Waxaana soo dhoweeyey odayaasha gabadha dhankeeda ka socday. Markii aan cabbaar wada hadalnay, waxay nagu dhaheen, wax ku soo dara $1,000 ee meherka ah, waa ay yar tahaye. In yar kadib odayaashii mid ka mid ayaa soo istaagay oo garabka ayuu iga qabtay, wuxuuna i dhahay may xasuusataa. Anigoo yaaban ayaan ku dhahay maya. Wuxuu i yidhi, ma xasuusataa wadaad aad habeen mooto bajaaj ku soo qaadaysay, markii aad lacagta ku heshiiseen ay gabadhiisa soo wacday iyadoo meel cidlaa taagan, adna aad furatay oo aad deymisay lacagtii, oo aad ku dhahaysay adeer waxaa laga yaabaa inaan gabadhaada soo doonto. Kadib ayaan dhahay, haa adeer waan ku xasuustaa. Wuxuu i yidhi, adiga miyaa doonayay gabadha? Waxaan ku dhahay maya, waa walaalkay, lacagtii meherkana waa nalaga diiday, ee gabadhaada miyaa? Wuxuu dhahay, haa waa gabadhayda, oo adeer ayaan u ahay. Maantase waxaa la joogaa maalintii aan kuu gudi lahaa abaalkaaga. Wuxuu kaloona yidhi, adeerayaal soo dhowaada, gabadhii waad hesheen, lacagtan aad wadaanna reerkan ku dhisa, wixii kaloo ka soo harayna aniga ayaa garab idinku siin doonaa. Sidaa ayuuna ku hirgalay guurkii, iskuna calmadeen walaalkay iyo gacalisadiisii. Xaqiiqdii wiilkaas bajaajlaa ah wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh. Ficilkiisii wanaagsanaa ayuuna Allo ku furtay lamaanihii iscalmaday, kuwaasoo maanta ku dakaynaya nolol qurux badan. Haddaba inaad maalin u baxsatid ayaa laga yaabaaye, dadka abaal gasho, wax la beertana dadka ayaa u wanaagsan. Muuqaalkanna waxaa laga yaabaa inay saaxiibada kale ka faa'iidaystaan, waxna ku qaataan inoo sheer gareeya.